kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa barteena Facebook ee Bilan Radio maanta wararkaan idin heeno intooda badan waxaan ku dul istaagi doonaa xaaladaha magaalada Boosaaso dad isku qoys ah oo ku geeriyooday hoobiyaal ku dhacay magaalada Boosaaso iyo barakac ka bilowday magaaladaas iyo sidoo kale dil ka dhacay degmada Afgooye oo faahfaahinad dheeraad ah laga helayo ee u diyaar garooba wararkeena maanta waxaan ku bilaabeynaa dad isku qoys ah ayaa waxa ay ku geeriyoodeen hoobiyaal ku dhacay magaalada Boosaaso waxaa sii kordhaya khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee uu geystay dagaalka saakay waa berigii hore ka bilowday magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kuwaas oo u dhaxeeya ciidamada ka amar qaata madaxweynaha maamulka Puntland iyo sidoo kale kuwa BSF-ta wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in hoobiyaal ku dhacay guri ku yaala agagaarka masjidka Salman Al-Farisi ee magaalada Boosaaso ay ku dhinteen nin da' iyo gabar iyo wiil isku qoys ah iyo sidoo kale Sheekh Xuseen Mukhtaar Afrax Suudani oo cashir tafsiir ah ka akhrin jiray masjidka Salman Al-Farisi sidoo kale waxa jira dhaawacyo kala duwan oo la geeyay isbitaalada waaweyn ee magaalada Boosaaso waxaana wali magaalada Boosaaso laga maqlayaa rasaas goos oo isku adeegsanayaan dhinacyada dagaalamaya xukuumadda maamulka Puntland ayaa wali wax war rasmi ah ka soo saarin dagaalka magaalada Boosaaso balse agaasimaha xilka laga qaaday ee BSF Maxamuud Cismaan Diyaano ayaa sheegay inay ku jiraan isdifaacid barakac xoog leh ayaa la sheegayaa in uu ka bilowday magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxa wali magaalada Boosaaso laga maqlayaa rasaasta isweydaarsanayaan ciidamada ammaanka Puntland iyo kuwa hay'adda BSF kuwaas oo si weyn saameyn ugu yeeshay magaalada Boosaaso kasoo dagaalka waxa barbar socda barakac xoogan oo ay sameynayaan dadka ku dhaqan magaalada Boosaaso oo ay isaga baxayaan si aysan waxyeelo uga soo gaarin dagaalka waxa xalay jiray dadaalo nabadeed oo ay wadaan ururada bulshada rayidka Puntland iyo odayaasha dhaqanka si xabad joojin loo sameeyo balse ay u muuqato in wada hadaladan ay fashilmeen waxa guud ahaan xiran goobihii ganacsiga dekada iyo duulimaadyada garoonka diyaaradaha iyo isku socodka gaadiidka dadweynaha ee magaalada Boosaaso wararka ku soo kordha ee xaaladda magaalada Boosaaso waxaan idinku soo gudbin doonaa isla barteena Facebook dil ayaa waxa uu ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana ka soo baxaya faahfaahino kala duwan kooxa ku hubaysan bastoolada ayaa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxay ku dileen laba nabadoon oo kamid ah kuwa ugu caansan degmadaas iyaga oo dilka kadib goobta ka baxsaday nabadoonada la dilay ayaa lagu kala magacaabi jiray Cismaan Cabdi Saalax nabadoon iyo sidoo kale Cabdullaahi ayaa lagu kala magacaabi jiray Cismaan Cabdi Saalax iyo sidoo kale nabadoon Cabdullaahi Maxamed Cali sidoo kalena ahaa imaam masjid ayaa dilkooda waxa ay ka kala dhaceen xaafadaha Baalguri iyo sidoo kale Raqayle ee degmada Afgooye wali ma cadda sababta ka dambaysa dilka loo geystay labada nabadoon waxaana hore degmadaas Afgooye loogu dilay nabadoono kamid ahaa qaarkood kuwa soo xulay ergadii soo dooratay baarlamaankii 10aad ee waqtigoodu dhamaaday kuwaas oo dilalkoodu ay sheegteen ururka Al-Shabaab ciidamo ka tirsan laamaha ammaanka ee degmada Afgooye ayaa howlgallo ka fuliyay xaafadaha Baalguri iyo sidoo kale Raqayle oo ay dilalka ka dhaceen balse ma aysan ku guuleysan inay gacanta ku soo dhigaan dadkii ka dambeeyay dilalka nabadoonadaasi maamulka iyo sidoo kale laamaha amniga degmada Afgooye ayaa wali dhankooda ka hadlin dilalkaas waxaana degmada Afgooye dhowr jeer oo hore sidaan oo kale ka dhacay dilal loo geystay nabadoono iyo dad kale oo bulshada xaggooda caanka ahaa guud ahaan warkii aad ka daawanayseen barteena Facebook ee Bilan Radio waa naga intaas daawadaad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan hadii ilaa dhamaadka aad la joogtay daawade fadlan bogeena like saar sina share garee muuqaalka nabadgelyo